halkan aad arkaysaan ayaa waxay tahay dhismaha casriga ah ee wasaaradda macdanta iyo tamarta ee magaalada Hargeysa. Dhismahan sida casriga ah u qalbaysan ayaa wuxuu ka mid yahay dhismayaasha ugu bilicda wanaagsan ee magaalada Hargeysa ku yaala. wasaaradda macdanta iyo tamarta haddaba qofkii aan hore u arag ayaa waxay ku taallaa xaafadda 26 Juun. waxa ay kasoo horjeedaa madaxtooyada Somaliland, waxa ay barbarka dhinaca bidixda ku haysaa aqalka baarlamaanka iyo guurtida. dhanka kale waxa iyana dhinaca galbeedka ka sii xiga wakaaladda biyaha, wasaaradda xanaanada xoolaha iyo gobolka. wasaaradda macdanta iyo tamarta ayaa waxay tahay wasaaradda ugu dhismaha quruxda badan uguna bilicsan ee ku taala wasaaradaha wadanka Somaliland. wasaaraddan ayaa waxaa la dhisay xilligii madaxweynihii hore ee Somaliland wadanka ka talinayay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo. wasaaraddan ayaa waxaa sii dhisay wasiirka magaciisa la oran jiray Dr. Xuseen Cabdi Ducaale. wasiirkan ayaa wuxuu ahaa khabiirka ku takhasusay dhinaca batroolka. haddaba wasiirkan ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxa uu ku noolaa wadankaasi cariga Mareykanka. wasiirkan ayaa wuxuu ahaa wasiir howlkar ah. wasaaraddan ayaa aragtaan sida loo qalabeeyay, hadday tahay dhiraynta, hadday tahay qalabka qurxinta iyo hadday tahay agabka loo isticmaalo in shidaalka lagu soo saaro. dhirta waaweyn ee wasaaradda ayaa waxay ka mid tahay kuwa meel weyn ugu jira wasaaradda. wasaaraddan ayaa waxay caan ku tahay in laga shaqeeyo arrimaha batroolka iyo macdanta, halkaas oo wadanku uu qabo hamuun badan. mahadsanidin markastaad nagala socotaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.